bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan anoo ku hadlayo magaca shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka banaadir si gaara hambalyo ugu diro ilhaan cumar oo runtii noqotay gabadhii ugu horeysay muslimad ah ee ku guuleysata inay xildhibaan ka noqoto dalkaas Mareykanka oo Congress-ka loo yaqaano. Tallaabadan iyada ah waa tallaabo runtii aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta meel walba joogto u soo dhaweynayso. ilhaan cumar oo shakhsi Soomaali ah ku dhalatay magaalada Muqdisho sharaf iyo karaamo ayay u soo haysay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan. Tanna waxayna tustay gabdhaha Soomaaliyeed sida ay runtii u yihiin kuwo sumcadda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed muslimiinta u soo jiidi kara. Maantana ay aqalkii Congress-ka ee dalka Mareykanka ay runtii xubin ka noqotay. waxaan u rajaynayaa waa guul taariikhi ah ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtana aan ka codsanayo inay soo dhaweeyaan. waana guul ku dayasho mudan. gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan leenahay qof kasta oo dadaala waa gaaraya. marka sidoo kale Soomaalida qurbaha joogto meel walba ay joogaan waxaan leenahay noqda kuwii ayaga wax istara dalalkay joogaan wax tara ummadda Soomaaliyeed iyo islaamkana wax tara. marka aad iyo aad mar kale ugu hambalyeynaya ilhaan cumar aad iyo aad u mahadsan.